Asalaamu calaykum asxaabta barnaamijkan maanta waxaa uga hadlaynaa sababaha ay shirkadahan isu xireen. Shirkadahan ayaa shirkadii u waaweynaa waqtigooda balse inay xirmaan ay sabab u ahayd alaaba ay soo saareen oo ay islahaayeen faa'iido aad u badan ayaa ka heli doontaan, balse qaladaad ka dhacay ay keeneen fashil iyo inay gebi ahaanba is xiraan. Shirkadda ugu horeysa waa shirkadda gawaarida DeLorean Motor Company. Shirkaddan ayaa waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1974. Shirkadaha waaweyn ayaa bilowga hore ka soo bilaaba meelo hoose, balse dadaal badan kadib noqda shirkado aad u waaweyn oo wax soo saarkoodu bato, dunidana aad looga aqoonsado. Balse shirkaddani waa ay ka duwaneyd shirkadaha kale oo waxay soo saari jirtay hal nooc gawaarida ka mid ah, balse si dhaqso ah ayay markiiba caan u noqotay oo dunida oo dhan aad looga bartay, taas oo ay sabab u ahayd nooca gaariga ay soo saareen, kaas oo ahaa nooc markaas dunida aad ku cusub, ka horna aan noociisa hore loo arag, qurxin iyo casriyeyn badanna lagu sameeyay, kaas oo indhihii caalamka soo jiitay. Haddaba gaarigan ay soo saareen ayaa waxay ugu magac dareen DeLorean TMC-12. Haddaba gaarigan ayaa si weyn uga soo caan baxay aflaan musalsal ahaa waqtigaas oo aad loo xiiseyn jiray oo socon jiray sanadadii 80-aadkii. Aflaantan musalsalka ah ayaa lagu magacaabi jiray Back to the Future, waxa uuna ku saabsanaa horumarka dhinaca tiknoolajiyadda iyo isbeddelka mustaqbalka. Shirkaddan ayaa gaariga si wacan u qurxisay, iyagoo daaqadihii gaariga u sameeyay hab aad u cajiib ah oo aan horey loo arag. Daaqadihiisuna kor ayay u kacayeen, si fududna waa loo furi karayay, balse waxaa ku adkaaday waxyaabihii aasaasiga u ahaa gaariga, sida inay kordhiyeen xawaarihii gaarigu ku soconayay. Iyadoo ay sidaas tahay ayuu qiimaha gaarigu ahaa 12,000, waxa ayna ka dhigeen qiimihii gaariga 20,000. Taasi waxay sababtay in la waayo cid gata. 8 sano kadibna shirkaddii waa ay is xirtay. Edsel Fortley Henry Ford oo aasaasaha shirkadda gawaarida ee Fortley sanadkii 1903 ayaa bilowgii kontameeyadii soo saaray gaari uu sheegay inuu yahay gaarigii mustaqbalka, uguna magac daray magaca wiilkiisii Edsel Fortley. Soo saarista gaarigan ayaa shirkadda waxay ku qaadatay waqti aad u badan. Sidoo kale, ka hor intaanay gaariga suuqa keenin ayaa loo sameeyay xayeysiimo aad u badan oo ay shirkaddu ku bixisay. Xayeysiimahaas dhaqaale aad u badan. Dhaqaalahaas aadka u tirada badan ayay shirkaddu waxay uga dan lahayd in waqtiga ay gaariga soo saaraan ay dadku gataaniin. Ugu dambeyn, shirkadda gaarigu waxay soo bandhigtay dabayaaqadii kontameeyadii. Bilowga soo bixista iyo iibsigu ma xumayn oo tiro fiican ayay dadku iibsadeen. Hase ahaatee, muddo yar kadib ayaa iibsashadii gaariga ay si weyn hoos u dhacday, taas oo sababtay in shirkaddu is xirto.